buuggii ridaha farxadoo kale iyo hogaaminta naftu sidee isugu xidhayeen waxay iskugu xidhayeen ridaha farxadda waa mid ka mid ah qofku matalan lix ridood baan buugga kaga hadlaya marka irid ka mid ah amaba iridda koobaad iyo weliba iridda lixaad laba iridood oo ka mid ah ayaa labaduba waxay ka hadlayaan macnaha qofku oo maanta haddii matalan tusaale ahaan adduunyada waxyaabaha farxad la-aanta aada uga qayb qaata heer dadkaan muslimiinta ahayn ay depressionka iyo xanuunada qulubka ambaba isdilka inuu qofku isdilo ay gaadhsiisaba macno la-aanto qofku inuu garan waayaba nolosha wuxuu taagayba amba asalkiisa muxuu doonayaa amba muxuu ku wanaagsanya amba maxaa loo abuurayba inaanu garanin macnihii wanagan hadafkiiyo ujeedada laba noqon kara mid waa ka guuda wixii laynoo abuuraya midna waa ka gaarka qofku anigu maxaan ku habboonay horta anigu maxaan ku hagaagsanay aniga doorkayga muxuu yahay nolosha qofku inaana uba muuqanba labaduba waa laba macnaha la xidhiidha marka qofku inuu macnaha waayaa farxad la-aan intaasaa ugu filanba marka ugu yaraan laba tiro ka mid ah amba buuggu si guud buu meelo badan uga hadlaya ama hogaaminta naftuna qofkii waxay u sahlaysaa markaa inuu qofku uu naftiisi ku hago oo u sameeyo markaa himilooyin iyo waxuu hiigsanayo isagoo ku salaynaya markaa qiyam iyo mabaadiyo guud oo islaamiya uu rumaysan yahay taasaa marka dema u suurta gelinaysa qofku inuu dareemo macnihii uu raadinayo marka xidhiidh weyn baa ka dhexaynaya qofku marba hadduu wanaajinayo naftiisa oo uu hagayo waxaa hubaala inuu mar walba macno iyo farxad iyo qanaaca uu gudaha ka dareemayo marka la barbar dhigo qofka noloshiisu ay kala daadsan tahay ee aan wax jihaan lahayn